Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada qaybtii 8aad sheekadii la magac baxday maanta hariibeen. Balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saartid siina share garaysid si asxaab badan ay u gaarto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Asxaabta nagu cusub aan soo dhaweynayaa, kuwii hore ula socotana waad ku mahadsantihiin soo dhawaada. qaybtii hore waxay sheekada inoo mareysay guuleed oo maskaxdiisa su'aalo badan weydiiyey. wuxuu leeyahay dhabtii su'aalahaasi deganaantii oo dhan ayay iga qaadeen. waxay igu abuureen welwel hor leh oo aanan qabi jirin. waan isla dooday oo isla murmay. waxaan raadiyey jawaabo ku habboon su'aasha maskaxdaydu asqastay. marar badan waxaan ku fikiray inaan iska laabto oo fursaddaasi maya ma adigoo intaasi dhan soo socday ayaad laabanaysaa hadda. taasi macquul maahane, talo kale keen. nafteyda iga hor keentay canaad iyo diidmo qayxan oo aad moodo inaan caqli lagu darin. run ahaan maalintaas si fiican ayaan rabay inaan u fakiro. waxaan rabay inaan beeniyo sheekadii ahayd Afrikaanku waxa soo socdo maba isweydiiyo. waxaan rabay inaan markii ugu horreysay isqanciyo oo nafteyda ka guulaysto rabitaanka waalan ee nafteyda damacsan tahay. waxaa maskaxda ka soo yeertay inaan caqli adeegsado ee aan caadifad ku shaqayn. nafta si kastoo aan ula dooday way keeni weyday jawaabo caqliga ku qanco. waxaan la yaabay dareen laabkac ah oo caadifad ku dhisani sida uga xoog badatay caqli iyo xujada maskaxdu ku tabarucayso. waa yaab. waxaan isweydiiyey bal in dadka oo dhan ay caadifad ku socdaan ee aysan jirin cid caqli iyo maskax deggan intay ku fikirtay go'aanka tahriibta ka dhaqaaqday. maya, dadkan oo dhan caadifad kuma socdaan, nafta ayaa mar kale ku dooday. waxaa iga digi waayey in kumanaan Soomaali ah oo baddaas ku dhammaaday ay caadifad ku socdeen. kolley anigu taasi waan liqi waayey. haddana jawaab lagu qanco oo aan qof naftiisa ugu biimeyn karo halaagaas waan waayey. waxaan raadiyey hal qodob oo macquul ah oo nafteyda ugu hoggaamin karo dhimasho. haddii shaqo la'aan dalkii ka jirto, taasi macnaheeda ma ahan inaan dhimasho u bareeraa. haddii waalidkay sabool yahay, ma waxaan dhibtii hoose ugu kordhiyaa murugo, naxdin, walwal iyo qarash badan oo ay soo deentaan. iyo weliba hadhow markii qarash ku dhammaado in loogu bishaareeyo dhimashadii aan lugahayga ku soo doontay. haddii aan sidaas yeelo, waalidkay ma u gargaaray mase waan cusleeyey oo cadaabtii ay ku jireen ayaan cadaab kale ugu daray. hadda waan daalay. waan istaagay aniga oo aan wax natiijo ahi ka gaarin doodii nafta. goor murankii ani iyo nafteyda ka dhex aloosnaa uu cirka isku shareeray oo aan ku jiro xaalad deganaansho la'aan nafsi ah, ayaa nafti si waanwaan ahi waxay iigu soo sheegtay inaan doodda halkaas ku hakiyo maanta. waan kacay oo dadkii iska dhex galay. waxaan u soo galay asxaabtii oo farxad dhalanteed ahi ay ka muuqato. dadku isku dareen ma aha. wayse jiraan qaar sideyda oo kale uu dagaal ka dhex socdo gudahooda. hase ahaatee marka aad la kulantid, aad ka dareemaysid inay qarsanayaan jab nafsi ah iyo kacdoon gudahooda ka socda. dadka qaar waa kuwo jecel in culayska lala qaybsado oo way calaacalayaan, way cabsanayaan oo weliba calool xumoonayaan. kooxdan ma aamusaan oo go'aan ma qaataan. waxaan ka wadaa, waxay ka baqayaan khatarta soo socota, haddana go'aanka laabashada ahi kuma dhiiran karaan. keliya qaybtayada aamusnaanta la gorofaysan ayay dhiigga ku sii karinayaan. asxaabtii cusbeed iyo cawayskii xiisaha lahaa. markii aan Khartoum tagnay, qof kasta waa nafisay. waxaan dareennay markii ugu horreysay nasiinyo. ilaa Addis Ababa waxaan ku jirnay socod, hurdo la'aan iyo ciriiri. dadkii way qubaysteen oo ustagii iska dhaqeen.
Gabdhihii qaar laba shay watay way iska soo beddeleen maryihii, qaar kalena dhar ayay soo iibsadeen. Cunto fiican ayaa nala siiyey oo weliba dharagnay. Habeenkii halkaas ayaan seexannay kulligeen, gabdho iyo wiilalba. Maalintii labaad waxaa noola keenay koox dhalinyaro ah oo Soomaali ah. Dhalinyaradaas waxaa ku jiray qaar ka yimid Soomaaliya iyo qaar ka soo baxay dalka Uganda oo soo maray Koonfur Suudaan. Qaybta Suudaan soo martay waxay soo mareen rafaad iyo halis. Habeenkii oo dhan ayaan sheekaysanaynay, qof welibana wuxuu ka warramay wixii uu soo maray. Runtii khibrad badan ayay nala wadaageen asxaabtii Uganda ka timid. Waxay la soo kulmeen sheeko yaab leh. Saalax wuxuu ahaa qofkii ugu sheeko macaanaa raggii habeenkaas noo warramay. Sheekadii Saalax. Saalax wuxuu arday ka ahaa dalka Uganda, magaalada Kampala. Waalidkii waxay ku ogaayeen isaga oo halkaas wax uga barta. Sida uu u joogay ayay habeen wiil ay saaxiibo yihiin jaamacaddana wada dhigtaan ku qarsaday inuu tahriibayo. Cabdulaahi isaga sir qarsi kaliya kama ahayne waxa uu ku fikirayay inuu ku qanciyo saaxiibkiis in uu tahriibta u raaco oo horey u sii duufsado. Habeenkii oo dhan ayay meel cidlo ahi la fadhiyay, xilli dambana way gaartay saacadda sidii loo falanqaynayay sheekada tahriibta. Waxaa la sawirtay inay fududahay in la tahriibo. Waxaa nin waliba soo bandhigay xog caata ah oo awaal u badneed oo uu ku hayay tahriibka. Gallad oo 20 beri kaliya maqan, mar hore ayuu Talyaaniga ka soo hadlay. Cabdulaahi ayaa ku qanciyay Saalax. Ma gallad kaliya? Anigaa 100 qof aqaan oo si fudud ku galay Yurub. Inkasta oo Saalax caawa uu qaatay go'aanka inuu tahriibo, haddana macnaheeda ma ahan in Cabdulaahi uu ku dhaliyay in uu tahriibo. Saalax muddo sanad ku dhow ayay ka dhex guuxaysay in uu tahriibo. Bil kasta marka oo walaalkiis oo Yurub jira biilka kala soo daaho wuu iscaraysiin jiray. Waa marka uu dhahayo, iska hayso biilkaaga, uma baahni, waan tashanayaa aniga. Guure waa walaalka Saalax biilka u soo dira bil kasta, jaamacaddana ka bixiya. Waa nin fiican oo walaalkiis u hagar baxa. Waxa uu jecel yahay in walaalkiis wax barto, reerka oo dhanna isaga ayaa biila. Si uu horumar u gaarsiiyo reerkooda ma uusan guursan. Xataa waxbarashadii ayuu kaga haray oo shaqo raadis galay. Si uu beddelkiis walaalihiis aysan waxbarasho la'aan u noqon. Saalax waa wiil 20 jir hadda madaxa la galay. Wuxuuna aaminsan yahay in walaalkiis oo Yurub joogo lacagta adduunka ku fadhiyo. Marka ay wada hadlayaan, Saalax wuxuu dhahaa, Guure adiga baashaal ayaad ku jirtaa, anagana Afrika ayaa nala hartay. Guure wuxuu dhahay, walaal haddii aan fursadda aad haysato aan haysan lahaa oo aan heli lahaa cid i tiraahdo wax iska baro, annagaa biilka ku siinayne, inta aan noolahay wax ayaan baran lahaa. Maxayse kugu taalaa? Hadalkaas iyo waano oo dhan Saalax wuu ka sii qaadaa canaad iyo madax adeeg. Wuxuu rumaysan yahay in qofkuba aanu farxad noloshaan arkin haddii uusan Yurub tagin oo uusan dhirta iyo quraxda deegaankaasi indhaha ka soo buuxsan. Waxaa hadal hays u ah in uu Saalax ku dhaho ama uu ku doodo, walaal inoo imaw haddii aadan meesha raaxo ku haysan. Guurana wuxuu dhahaa, walaal maanta wax aan ka jeclaan lahaa ma jirto inaan nasto, dalkaygan imaado oo hooyaday la joogo. Yaase haddii aan tago hooyo biilaya. Waad ogtahay aabba markuu xanuunsanayay in la yiri waa in Dubai loo qaadaa, lacagtaas deyn ayaan ku soo qaaday ilaa haddana waan bixiyaa. Idinkana waxbarashadiina yaa meel saaraya. Saalax bil ka hore ayay ahayd marka uu habeen go'aansaday in uu walaalkiis ka codsado si kama dambays ah inuu dhoofiyo ama warcad u sheego. Asaga oo xanaaqsan ayuu wacay, walaal aniga jaamacad ma dhiganayo ee niyahow runta ii sheeg, ma i dhoofin mase maya.
Guure habeenkaas si fiican ayuu wax u tusaaleeyay. Waa uu waaniyey oo wax u sheegay kor iyo hoosna oo la hadlay. Marka aad jaamacadda dhamaysato, dalkaaga u shaqo tag. Dalkii iyo dadkii aad wax u baratay soo kuma sugaayo. Saalax talo iyo tusaale kastaba dhagaha ayuu ka furaystay. Run ahaan walaalkiis kor iyo hoosba oo la hadlay. Wuxuu u sheegay in haddii uu awoodo in uu kaxeeyo uu mar hore kaxayn lahaa, balse aanu awoodin. Saalax markii uu taleefanka dhigay, muddo ayuu naftiisa la showray. Habeenkaas wuu caraysnaa. Fikraddii tahriibta oo marar badan ka fikirayay habeenkaas si fiican ayay ugu dhadhantay. Maxaad Guure habeen kasta u baryaysaa? Ma go'aan qaadato? Isagaa isweydiiyey oo haddana isu jawaabay. Xoogaa buu fikiray oo isweydiiyey waxa ugu imaan kara haddii uu tahriibo. Isagu wuxuuba isu haystaa xaqu dirir u halgamaya wanaag laga hortaagan yahay. Ma aha markii ugu horreysay oo uu tahriib ku fakaro. Mar kastase hooyo ayaa habaar iyo waano la soo taagan oo ka hortaagan inuu tahriibo. Aabe xataa asaga dhiigga ayaa ku karaya haddii uu maqlo Saalax waa tahriibay. Waa run oo odayga hadda ayaa dhakhtar dibadda ah laga keenay. Haddii asaga oo sidaas u xanuunsan aad naxdin ugu dartid, soo inkaar ma aha, ayuu mar waliba naftiisa ku sasabay. Caawa ninkii Cabdulaahi ahaa ayaa dacarta ku kiciyey. Wax waliba ninkan baa u sahlay. Aniguba lacagta jaamacadda markii la ii soo diro ayaan ku baxayaa. Cabdulaahi ayaa talo ugu soo jeediyey inuu sidaasi oo kale sameeyo. Saalax madaxa ayuu ruxay oo muujiyey sida taladaasi ugu bogay. Bal waan ka fikirayaa ilaa berri, Saalax baa yidhi. Aniga nin jilacsan kuguma ogeen. Go'aan qaado sidii nin rag ah, ama calaacal dambe yaan lagaa maqlin. La soco qaybta xigta. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Muuqaal kale like saar. Waa wacyigelin guude. Hadda inoo share gareeya.